waxaan doonaynaa wasiirku inuu aad u soo farageliyo arrintaa waxaan kaloo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi u sheegayaa gobolka Sanaag oo ah gobol ballaaran oo xaasxaasiya Chief Aqal Faysal Maxamed Cabdi Soofi oo warbaahinta kula hadlay magaalada Cerigaba waxa uu faahfaahin ka bixiyay caqabad uu sheegay inuu kala kulmay gudoomiyaha gobolka Sanaag mudane Axmed Cabdi Muuse waxaana Chief Aqalku sheegay in barasaabka gobolku hortaagan yahay shaqadii madax dhaqameedku ay u hayeen beelaha gobolka waxaana Chief Aqalku fariimo kala duwan u diray madaxweyne Biixi iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxaanu ka cabanaynaa barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse waxaanu kaga cabanaynaa gobolka Sanaag anagoo dhaqankiisii ah barasaabku wuu diiday oo waa iskaayo hortaagay in arrintii aanu xaqa u lahayn ee dhaqanka ee nabadeynta iyo magaha aanu beelaha u kala qaadi jirnay ayuu iska kaayo hortaagay oo nala shaqayn waayay gobolkuna waa gobol xasaasiya waa ogeydinoo dee dilal badan baa ka dhacay intuu joogay annagoo ah beesha ugu ballaaran gobolka ee beesha la yidhahdo Muuse Turwa labadii dil ee ugu dambeeyay ee gobolka ka dhacay annaga nagu dhaceen nabadgelyada gacantaan ku qabtay aad baan u xakameeyay waxaanu samaynay inaanu dib u heshiisiin bilowno oo beelihii dib ula heshiino oo magihii u kala gurno heshiiskii u horreeyay ee nabadeynta markaanu gallay oo dhammaynay kii labaad markaanu u gudubnay barasaabka waa iskaayo hortaagay waa nala shaqayn waayey arrintii magaha iyo dhaqanku nagu soo farageliyey in dadku heshiiyaan oo dhaqanka iyo aanu dib heshiisiin samayno ayuu nagula shaqayn waayey wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka Maxamed Kaahin Axmed waxaanu ka codsanaynaa annagoo ah cuqaashi gobolka u xil saaray nabadeynta iyo dhaqanka iyo dib heshiisiinta reeraha waxaanu u sheegaynaa wasiirka in barasaabku iska kaaya hortaagay oo afcad nagu yiri wax alla waxaan idin qabanayaa ma jirto cidda nabadgelyada iyo dhaqanka kullidka ee shaqada nagu soo faragelisay markii aanu niro wax nooga qabo uu noo bareeray wuxuuna yiri wax alla waxaan idin qabanayaa ma jirto wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed waxaanu leenahay arrintaasi degdeg ah u soo farageli amniga wixii ka xumaada iyo gobolkana barasaabka ka mas'uula maadaama uu diiday inaanu dadka magihii u kala gurno oo heshiis dhex dhigno oo nagula shaqayn waayay waxaan doonaynaa wasiirku inuu aad u soo farageliyo arrintaa waxaan kaloo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi u sheegayaa gobolka Sanaag oo ah gobol ballaaran oo xaasxaasiya barasaabka gobolka kuma filla waa nin dhalinyaro ah madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba gobolka inuu u soo magacaabo nin weyn oo mas'uuliyadda gobolka qaadi kara oo arrimaha cuqaasha nagula shaqeeya madaxweynaha waxaanu leenahay barasaabku waa diiday cuqaashii inuu nala shaqeeyo oo aanu amniga ka shaqayno oo dadka dib u heshiisiin iyo dhaqankii iyo magii u kala gurno buu nagula shaqayn waayey mudane madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu ka codsanaynaa gobolku waa gobol ballaaran oo xasaasiya dilal badan baa ka dhacay intii barasaabku joogay tii u horreysay markii aanu heshiis ka gallay tii labaad waa iskaayo hortaagay madaxweynaha waxaanu leenahay si degdega madaxweyne gobolka barasaabka nooga bedel oo barasaab gobolka ku filan noo soo dir mar labaad wasiirka arrimaha gudaha waxaan u sheegayaa heshiisyadii aanu gallay ee nabadeynta ee beelaha mar haddii wejigii koobaad markuu dhammaaday kii labaad barasaabku iskaayo hortaagay waanu hakanay heshiisyadii intii dambe ilaa inta wasaaradda arrimaha guduhu cid noo soo darayso ee barasaabkaana laga qabanayo oo shaqadayadii nagu haysta oo dhaqankii nagu farageliyey oo dib heshiisiintii dadka aanu la gelaynay cidda caqabadda ku aan noo qaban waayey waanu hakanay dhammaan kuwii aanu gallay iyo kuwa dambeba wasiirkaanu la sugaynaa mar labaad iyo mar saddexaad wasiir si degdega gobolka noo soo cid noogu soo dir oo barasaabka naga qabo noola shaqayn waaye annagu wasaaradda arrimaha gudaha aanu ka tirsanay cuqaasho oo aanu la shaqaynaa oo nabadgelyada gobolka aanu gacanta ku haynaa dee ciddii nagula shaqayn lahayd baanu la'anahay aad baanu uga codsanaynaa wasiirka inuu soo fargeliyo madaxweynahana mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu ka codsanaynaa inuu gobolka u soo magacaabo cid mas'uuliyaddeeda qaadi karta oo inankaa dhalinyarada ah ee aan aad u fahmaynin naga bedelo annagu maanaan soo joogin intii aan joogay aan shaqaynayay dhowr iyo 10 sano waxaan la shaqayn jiray barasaabo waaweyn oo guurti ah cid kaaya is hortaagtaa ma jirin wuxuu isku hortaagay cidna ba idin soo qaban ma cidna idin soo xidhin ma cidna taaban maayo cuqaashu waxa ay la tagto inuu saxeexo inuu u fuliyo ayuu joogaa gobolka waayo waxa weeye barasaabku waxa weeye arrimaha cuqaasha inuu kala shaqeeyo oo xukuumaddii weeye ee cuqaasha iyo gobolka wax deelqaaf waanu wali alaan ku samaynay imaanu ku tallaabsanay midna ma jirto